بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal nagala socotaan waa barta YouTube-ka Calis 24 Post taariikhda maanta waa 20 bishii 12 laba qodobada wararka waaweyn oo ka maqli doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha dowladda Russia madaxweyne Putin iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka mid yahay wasiirkiisa gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda iyo sirdoonka iyo qaybo kale oo ka mid ah ciidamada dalkaas ayaa booqasho lama filaan ah ku tagay maalinkii xalay ahayd madaxweyne Putin iyo saraakiishiisa ayaa shir la qaatay wadajira war-saxaafadeed soo saareen madaxweynaha Belarusiyana waxaa lagu sheegay in labada dowladood ay ka wada shaqayn doonaan xasiloonida gobolka iskaashiga xagga militariga dhaqaalaha sidoo kalena xagga saliidda cayrin sida gaaska noocyadiisa kala duwan daawadayaal madaxweyne Putin wuxuu ballan qaaday in hub casri ah oo siin doona dalka Belarusia gaar ahaan wuxuu taabtay in wadanku u baahan yahay in loo tababaro bayloodka diyaaradaha casriga ah madaxweyne Putin wuxuu hadalkiisa sii watay Moscow carbaabin inuu weerar kale lagu qaadan doono dalka Ukraine iyo in kale ma sheegin inkastoo arrimahaas ay saxaafadda reer galbeedka maalmahan buuburinayaan dhanka kale hadal kooban oo jeediyay madaxweynaha Belarusia asagoo kaftamaya ayuu wuxuu ku tuuray hadal madaxweynaha dowladda Ukraine wuxuu yiri waa fulay waxa uu mooday buu yiri anagu andaan ku baahanahay hal saac ama laba saac naguma qaadanayso haddii loo baahdo in lagu soo qabto marka wuxuu yiri fulay baa tahay lagu shaqaysto oo aan waxba kala ogeyn dalkiisina burburiyay wuxuu la jeedaa madaxweyne Putin hadalkaasna waxa yiri madaxweynaha Belarusia daawadayaal sidoo kale wuxuu cadeeyay in dagaalka Ukraine iyo Russia wuxuu yiri dhinaca Russianka wuxuu yiri anagu ayaan la jirnaa buu yiri ciidanka Russianka dalkayga joogan shalay toole ilaa maanta ilaa wiiga waxaan socon doonaa yiri dowladda military daawadayaal madaxweynaha Belarusia iyo wasiirka gaashaandhigga 3 bishan ay sarkeen intuu sameeyay imaan madaxweyne Putin maalinkii shalay ahayd waxaar buu ahaa ciidamo aad u fara badan oo hub casri ah wata droonta kamid ah yareera bombooyin qaadaya waxa kamid ah baasuukiyaashii kuwan shiishka oo liira sniperska dadka toogta meelaha fofo ka toogta daawadayaal taangiyaal noocooda aan weli hore loo arag ayay ku soo bandhigeen dhoortuskan siiba dhinaca Baltiga xuduudda ah iyo xuduudda dhinaca Ukraine aad baa loo baqayaa madaxweynaha Ukraine iyo saraakiishiisa labada ugu dambeysay waxay sheegayeen in laga yaabo ilaa bisha koobaad labaad ilaa saddexaad ugu dambeyn in madaxweyne Putin weerar kale oo ba'an uu ku soo qaado dalkaas dhinaca Belarusiana uu ka soo galo ciidamadiisa saxaafadda reer galbeedka wiigan ilaa xalay ilaa shalay ilaa duraad aad bay u falanqeynayeen aad bay wuxuu leeyahay 300 ilaa 400 oo kun ciidan gaaraya ayaa ku sugan beelayn dhinaca Belarusia ciidamadaas oo loo yaqaan Red Army waa ciidankii Berlin qabsaday Hitler ka saaray gacanta ku soo dhigay magaalada Berlin daawadayaal taangiye casri ah ay ciidamadu wataan sida nin muuqata taangiyadaas oo liiraa magacooda C139 kuwa hore waxaa la oran jiray T72 taangiyadan reer galbeedka ilaa shalay markay arkeen aad bay ula yaabeen hubka casriga ah oo Ruushka hadda uu ku soo biirinayo ciidamadiisa waxa ogeedeen dagaalkii bishii February 24 sanadkan uu ku soo qaaday hub Oldia inuu watay beebayaal taangiyo Oldia diyaaradahan Sukhoi 25 uu soo geliyay dagaalka hadda diyaaradaha casriga ah waxa la leeyahay dagaalka way ku jiraan way soo gelin doonaan sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ku-xigeenkiisa dalka Ukraine oo saxaafadda maanta la hadlayay ayaa sheegay dowladda Russia waxay wado waa ciribtir dad buu yiri inay tirtiraan bay rabaan buu yiri wadankii ma laha uu leeyahay koronto ma laha oo biyo ma leh wuxuu leeyahay wax lagu qaboojiyo ma leh wax lagu ka wada macna wax lagu kululeeyo ma leh korontadii ayaa laga jaray dalka dadkii wuxuu leeyahay waxa laga baqayaa mar dhow inay gaajo u leedaan iyo qow daraadiis taas waxaan u aragnaa buu leeyahay in la xasuuqayo oo la baabiinayo shacabka Ukraine waxay bilaabeen daawadayaal in ay soo gataan motoro ama si loo yaqaan generator ay ku shidaan meelaha supermarketyada
dadka badankooda hadda hoy waxay ka dhiganayaan meelaha goobaha tareenku maro, roodhiyaashii iyo cuntooyinkii bay diyaarsanayaan, qaar shaah bay karsanayaan. Xaaladdu aad bay u adag tahay, noloshii dadka aad bay u adag tahay. Dowladihii reer galbeedka oo dagaalkan waddankooda burburiyey oo madaxweynahan ku shaqaysanayay, wax caawinaa oo ilaa hadda la soo gaaraan ilaa hadda lama hayo. Intaas hubbay kusoo daabulayaan dagaalkiina. Daawadayaal, xaaladdu hadda waa isbedeshay. Dowladda Maraykanku xalatole waxay baasgareeyeen in gantaalaha casriga oo la calman waayey oo dowladda Turkiga loo diiday oo magacooda la yiraahdo patriotic missiles, kuwaasoo ka hortaga gantaalada kale ee cadowgu soo rido, sida gantaalada diyaaradaha iyo maraakiibta ee dhulka kasoo dhaca ee cruise missileska loo yaqaano. Halkii gantaal oo ka dhacaya patriotic missileska waxaa lagu qiyaasay ilaa 4 milyan oo dollar. Daawadayaal, kan nii muuqda waa wasiirka gaashaaniga ee dowladda Russia. Bishan 3deedii ayuu tegay dalka Belarusia, waxaa kasoo horjeeda oo madaxweynihii dalka Belarusia. Waxay ka wada hadleen arrinta Ukraine inta madaxweyne Putin uu soo imaan dalka maalinkii xalay ahayd. Xaaladda aad baa maaragtay loo saadaalinaya in ciidamada Belarusiyaanku dagaalka galaan, inkastoo madaxweynahoodu arrinkaas uu ka gaabsaday. Laakiin saxaafadda reer galbeedka waxay leeyihiin wuu soo gelayaa dagaalka. Maraykanka laftigiisa wuxuu leeyahay haddii Belarus gasho iyo Ingiriiska iyo wadamada kale waxay leeyihiin dagaalka anaguna waa gelaynaa. Daawadayaal, arrinku hadda wuxuu u muuqdaa in madaxweyne Putin uu adeegsan doono hubka sida ba'an wax u gumaada la yiraahdo nuclear-ka. Wuxuu soo bandhigay wiigan gantaaladiisii ugu casrisanaa nuclear-ka. Waxaan ka samayn doonaa war haddii eeb idmo maalinka beriya. Sidoo kale daawadayaal, waa mahadsantihiin daawashadiina, oo ku mahadsantihiin iyo inaan nala socotaan. Waxaan iga codsanayaa inaan noo shargarasaan, like-na saartaan channelka, asxaabtiina la wadaagtaan. Daawadayaal, dagaalka dalka Ukraine ka socda lama dhayalsan karo. Caalamka dhan ayuu saameyn doonaa. Doolarka qiimihiisa ayaa kicin doona, maciishada ayaa kicin doonta, shidaalka kicin doona. Sidoo kale amni ahaan wuu saameyn doonaa qaaradda Yurub iyo dalka Maraykanka haddii madaxweyne Putin uu adeegsado hubka sida ba'an wax u gumaada ee nuclear-ka. Laakiin Afrika waxaa laga yaabaa in arrinkaas ay dhexdhexaad ka noqoto. Haddii Afrika saldhigyada Maraykanka ku leeyahay oo kale iyo wadamadan Ingiriiska waa laga yaabaa inuu beegsado. Laakiin hadda sidaan aragno, madaxweyne Putin last week waa ka dhawaajiyay in nuclear isticmaali doono. Arrinkana hadda wuu dhaqaajiyay. Saraakiishiisa dhan baa la socota. Xaaladdu waa isbedeshay, weji kala yeelatay. Ukrainiinta hadda inay isdhiibaan iyo in gantaal nuclear lagu dhufto, labadaas oo dhexeeya. Madaxweyne Putin go'aankiisu waa inuu magaalada caasimadda Kiev uu gacanta ku dhigo. Daawadayaal, waa mahadsantihiin meel walba joogtaan. barnaamijkana share